fikirkan al-shabaab waxaa markii hore salka u dhigay oo aas-aasay dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Mareykanka iyo Israa'iil si aysan nabad uga hirgelin dalka Soomaaliya. Haddaba maxay tahay ujeedka ay wadamadaasi ka lahaayeen taageerida kooxda al-shabaab? Ujeedka Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa ah in Soomaaliya aysan nabad noqon maadaama ay tahay dal ila dhaqaale leh oo haddana ku yaala dhul istiraatiiji ah, nabadgelyadiisana ay khatar gelinayso jiritaankooda dhaqaale iyo saameynta ay caalamka ku leeyihiin. Sababaha ay u taageereen al-shabaab Israa'iil iyo Mareykanka ayaa lagu sifeeyay in dhaqdhaqaaq military iyo mid dhaqaale ku yeeshaan geeska Afrika iyo dalalka Carbeed, iyagoo ilaalinaya danaha ay ka leeyihiin dhaqaalaha dalalka Carbeed. yaa loo soo marsiiyaa lacagaha kooxda al-shabaab? ganacsatada kala ah Yaasir al-Rumayyan oo ah la taliyaha boqorka Sacuudiga ee Maxamed bin Salmaan, Khalid al-Qudayr oo ah ganacsade caan ka ah ahna madaxa howlgallada qarsoon ee Imaaraadka Carabta, waxa ay u geeyaan xubnaha sare ee ka tirsan CIA-da iyo Mossad. CIA-da iyo Mossad ayaa lacagaha, hubka iyo kiimikada soo geliya dalka Soomaaliya iyaga oo adeegsanaya magaca UN-ka. waxa ay u marsiiyaan siyaasiyiin iyo madax Soomaaliyeed oo ay ka dhigteen adeegayaal u qadmeeya. Mas'uuliyiintan ayaa lacagaha iyo hubka u geeya kooxda al-shabaab, waxa ayna si toos ah uga soo qaadaan sirdoona adeegsada magaca UN-ka, qaarkoodna xarun ku leh xarunta Xalane. waa kuwee dalaaliinta Soomaalida ee lacagaha loo soo marsiiyay al-shabaab iyo ganacsatada siisa lacagaha? kow, Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. isagoon madaxweyne ahayn ayuu hub dhowr nooc isugu jira kala soo degay dekedda Boosaaso. labo, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waa ra'iisul wasaarihii hore, hadda waxa uu laba xil ka haya Soomaaliya iyo Imaaraadka. lacago oo Imaaraadka ka soo qaaday ayuu ku wareejiyay Cabdiqaadir Muumin oo ah hogaamiyaha kooxda Daacishta Soomaaliya ee ku sugan Puntland, horeyna u ahaa xubin ka tirsan kooxda al-shabaab. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa siyaasi xildoon ah oo si toos ah ugu xiran Imaaraadka iyo Sacuudiga. isaga waa ka duwan yahay kuwa kale oo aan soo sheegnay, waayo waxa uu lacago ku qaataa bahdilka ciidamada dawladda iyo niyad diska argagixisada Soomaaliya. kooxda al-shabaab ayaa hadda u kala jabay 3 garab. ku-xigeenka Ameerikii hore Mahad Karatay oo gooni isu taagay isaga iyo in yar oo kooxdiisa ka tirsan. Ameerikii hore ee howlgelinta Al-Xabiib Cusmaan Xuseen oo ku magac dheer Mujaahid oo isna la goostay koox isaga taabacsan. Ameerika hadda talada haya Abu Cubayda iyo kooxdiisa taabacsan. Ameerada sare ayaa ku kala duwan maareynta dhaqaalaha iyo canshuuraha ay ka qaadaan howlgallada ay fuliyaan, taas oo sababtay inuu ururka sii wiiqmo maadaama ay meesha ka baxday awaamiirta iyo mowqifkii adkaa ee ka dhaxeeyay. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xoojiyay howlgallada ay ku qaadayaan goobaha ay al-shabaab ku sugan yihiin. taasi ayaa sababtay in wadamada taageera al-shabaab ay dib uga gurtaan Soomaaliya.